marka koowaad haddii aan nahay bahda nasiye iyo shirkadaha bahwadaaga la ah ee ka mid tahay asal iyo jiil iyo masrax production waxaan ku faraxsannahay inaan ka mid noqono taabageliyaasha barnaamijkan qiimaha badan oo loogu talagalay in maanta lagu qabto markii ugu horreysay dalka hooyo isku aadka ciyaaraha Somali Week. haddaan nahay shirkadda nasiye ma ahan markii koowaad ee aan taabagelinno barnaamijyada ay qabato ururka Today. waxaa kan inooga horreeyey oo aan ka taabagelinay barnaamijka isboortiga ay u qabteen dhalinyarada barbaarta aragala. kanna waa markii labaad mana noqon doono hadduu aan leedmo kii ugu dambeeyey. waxaan markasta garab istaagi doonaa ururada noocan oo kale ah ee ugu horeysa Today oo u taagan in dhalinta Soomaaliyeed laga caawiyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada. mudane marweyn nasiye waa shirkad ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed looguna talagalay in ay u istaagto sheegidda sheekooyinka Soomaaliyeed. nasiye waxaa slogan u ah ama halku dhig waxa u ah Soomaali sheeganaysa sheekadeeda. waxaan rabnaa haddaan nahay bahda nasiye iyo bahwadaaga shirkadana la ah inaan u istaagno sidii aan u sheegi lahayn sheekooyinka Soomaaliyeed ee markii hore si qaldan ummadda loogu sheegi jiray ama dibadaha loogu sheegi jiray inaan ku bedelno wax fiican wax khayr leh ummad maaragtay horumarka iyo hiigsigooda uu sareeyo inaan ka mid noqono. hadafkaas ayaa waxaa loo aasaasay shirkadda nasiye. haddaad arkaysaan waxaan bixinaa madadaalooyin ciyaaraha isboortiga aflaanta muxuu ahaa diiniga waxyaalo badan oo aad maaragtay aad ka heli kartaan. waxaan rabnaa maanta inaan meeshan ka sheegno insha allah ciyaaraha ka dhici doona Somali Week ee Toronto inaan noqono dadkii ugu horreeyay oo tabin doona Dwayleer insha allah. waxaan rabnaa qofka jooga Canada, qofka jooga Europe, qofka jooga Asia, kan jooga Africa inuu ciyaarahaas u daawado. wuxuuna ka daawan doonaa hadduu aan leedmo barnaamijka ama applicationka nasiye. waxaan isleeyahay maantay waxaa la joogaa waqtigii digitalka. waxaan bil ka hor qabanay barnaamij aad u weyn oo la yiraahdo daaci waan ugu talagalnay in aan dhalinta Soomaaliyeed ee TikTok-ga wax ku soo tabisa in aan meeshii iska cayn lahaayeen qabiil iyo wax xun ay sheegi lahaayeen inaan ugu bedelno wax khayr leh. waxay ku tartameen in khayrka la faafiyo. qofkii ugu horreeyay oo ku guuleysana wuxuu noqday gabar. meeshan waxaan rabaa marka in hablaha Soomaaliyeed aan u hambaleeyo gabadhaas oo ku guuleysatay $20,000. barnaamijkaas oo noo soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaan u taaganaa marka inaan ummadda iyo dhalinta Soomaaliyeed aan ka taabagelino wax walba oo khayr ah oo fiican qof alla qofkii haya sheeka Soomaaliyeed. waxaan anigoo ku hadlayaa afka nasiye iyo shirkadaha bahwadaaga la ah waxaan rabnaa inaan sheekooyinkiina tabinno. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan. waxaan idin leenahay soo dhawaada. nasiye waxaa halku dhig u ah Soomaali sheeganaysa sheekadeeda. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.